madaxweyne goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe waxa uu marayaa xanuunka imtixaan siyaasadeed oo saameyn dambe ku yeelan doona mustaqbalkiisa siyaasadda isaga iyo saddex ka mid ah saaxiibadiisa dowlad goboleedyada ee ay hadda isla jiheeyeen jadwalka doorashada waxa ay cabsi ka qabaan natiijada doorashada madaxweynenimada Soomaaliya waana halka ugu walaaca badan taasoo ku riixaysa in xubnaha aqalka sare iyo kuwa hooseba uu soo saaro ugu yaraan xubno difaac u noqon kara marka ay dhamaato natiijada doorashada hadda loo madlan yahay ee Soomaaliya Cali Guudlaawe waxaa laga sugayaa liiska musharaxiinta aqalka sare kuraasta magaaladiisa taalla Jawharna waa 8 waxa ayna inta badan aad isugu hayaan xubno kala duwan xubin kasta saameynteeda iyo horgumooyinkeeda ayay wadataa laacdanka kalena waa musharaxiinta goofka iyo fiilada oo labadooduba sheeda ka eeganayaan dhaqaaqa iyo lahaanshaha Cali Guudlaawe kursiga koobaad hadda waxaa ku fadhiya senator Maxamed Xuseen Raage waxa laga leeyahay Hiiraan waxa la xaqiijiyay inuusan ahayn Mr. Raage mar kale nin u tartamaya jagadan muddadii uu joogay xaadiritaankiisa golaha ayaa aad u koobnayd ma ahayn nin siyaasadda galaangal xoogan ku lahaa kursigan waxaa ku loolamaya waqtigan laga guulaystihii sanadkii 2016 Cabdulqaadir Xaaji Xanafi iyo Cabdulaahi Axmed Tawaab labaduba waxa ay dadaal gelinayaan sidii liiska Cali Guudlaawe ay ugu soo bixi lahaayeen Cabdulqaadir Xanafi waa ganacsade waxa lagu xaglayaa inuu ka tirsan yahay mid ka mid ah kooxaha siyaasadeed Tawaab waa qurba joog ka yimid Faransiiska loolan adag ayuu wadaa isagoo inta badan lagu tiriyo nin ka madax bannaan dhammaan darafyada siyaasadda ee ishardinaya kursiga labaad waxa ku fadhiya Muuse Suudi Yalaxow 4 sano ayuu soo ahaa senator qayb weyn ka qaata doodaha golaha hadalladiisa lagu maadsado hanjabaadihiisa soo shacbaxay dhamaadkii Abriil ee Muqdishona waxa ay ahaayeen kuwa saameyn leh waa mid ka mid ah qabqablayaashii dagaalka ee goofka Muqdisho saaxiibkiisa dhawaqa xabadda ay wada yaqaanaan Cumar Finish gudoomiyaha gobolka Banaadir oo riixaya Axmed Daaci oo asna ka yaraysan ayay iswajahayaan haddii qoondada beelaha hoose ay iswaafaqaan Yalaxow warar madax bannaan waxa ay tabinayaan inuu ka codsaday Cali Guudlaawe inaan lala tartamin isaguna keensado qofka loolanka la galaya sida uu ku aqbali kara Cali Guudlaawe ayaa mid walidoodii ay ka taagan tahay haddii ay dhacdo in Muuse waayo aqalka sanadka waxa ay ka dhigan tahay in qabqablayaashii dagaalku ay dhadhaminayaan kursiga kaydkan ay saaxiib la noqonayaan kursiga saddexaad waxa ku fadhiya senator Cusmaan Maxamuud Maxamed Dufle professor iyo dhakhtar Dufle warar madax bannaan waxa ay xaqiijinayaan inuu laacdan adag oo siyaasadeed kala dhaxayn doono safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Maxamed Tarsan duqii hore ee Muqdisho maadaama ay isxigaan waxa ay xoguhu cadeynayaan qof saddexaad oo kale inuu jiri doono kursiga afraad waxa ku fadhida Naciime Ibraahim Yuusuf waa mid ka mid ah kuraasta xaraaradda siyaasadeed ee kulul leh gudoomiyaha baarlamaanka Cabdixakiin Luqmaan Xaaji waxa uu doonayaa in kursigan laga bedelo qoondada haweenka lagana dhiga rag maadaama beeshaasi ay sanadkii 2016 keentay 3 gabdhood laakiin dhinaca Guudlaawe waxa ayana laga wadaa mid ka mid ah la taliyaashiisa Xuseen Kulmiye oo ah xogeyntii guddiga soo xulidda xildhibaanada Hirshabeelle ee uu ku aaminay Guudlaawe kursiga shanaad Cismaan Axmed Macow 4 sano ayuu soo liqay waxa uu doonayaa inuu mar kale soo muuqdo loolan adag waxa uu kala kulmayaa 2 ganacsade oo kala Xuseen Kobac oo ku dhexmilnaa xildhibaanada Hirshabeelle bilihii ugu dambeeyana dhaqaale xoogan galiyay iyo madaxtooyadaba waxa kale oo jira ganacsade lagu magacaabo Cabdinuur oo isna dab yar aan shidaynin kursiga lixaad Maxamed Cusmaan Dhagajoon ayaa hadda ku fadhiya ma ahayn nin aad uga dhex muuqda karkarinta siyaasadda beddelkeedase waxa uu ahaa qunyar socod siyaasadeed 4 sano mar kale wuu doonayaa inuu helo jagada waxa uu ciriiri siyaasadeed kala kulmayaa Cali Cosoble madaxweynihii Hirshabeelle maadaama xilligii uu madaxweynaha ahaa Cali Cosoble u fududeeyay beesha Cabdalle kursigan helideeda waxa uu hadda doonayaa inuu yahay kursi wareegaya oo ka dhaxeeya dhammaan beeshaasi Cali Guudlaawe oo toddobaadkan dhamaadkiisa soo saari doona liiska musharaxiinta waxa la filayaa in soo bixidda liiska ay dhinacyada siyaasadda ee Soomaalida xisaabtooda wax ka bedeli doonto dhammaan darafyadu way tirsanayaan niyaddana way ku wada hayaan inuu mid kasta gaar ugu hiilin doono
laakiin waxa ay u muuqan doontaa inay soo bixi doonto weedha Soomaalida ee tiraahda gari lama nin kama wada qosliso waana arrin weyn oo saameyn siyaasadeed reebi doonta. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si kan xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu sahlan yahay iyo sida uu dhaqso badan yahay. Ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta shareecada ugu kaalay markaska Nuurayn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka, higaada iyo culuumta kale Islaamka.